way kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa in idin la wadaago xogaha hoose ee aan heleynay ee ku aadan safarka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale madasha loo balansan yahay in Axmed Madoobe iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha qaranka markaasi ay kulan xasaasi ah ku yeelan doonaan magaalada Nairobi halkaasina ay ka bilaaban doonto xaajada dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland. haddaba maxay tahay waqtigan waxa ku soo beeqaamay in ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u safro iyadoo markaasi go'aan culusna ay dawladdu ay gaartay ee ahaa in markaasi deegaano badan oo kamid ah sida Ras Kamboni ay kamid tahay dawladdu ay geysay ciidamo cusub iyo waliba sidoo kale ciidamo aad u fara badan misna diyaaradooyin badan wada. xogtaasi ayaan rabaa in halku kuga faahfaahiyo misna kula wadaago macluumaadka hoose aan helin ee tibaaxaya kulamada halkaasi markaasi ka bilaaban doono. haddaba maxay yihiin soo dhawaada muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay uu ku soo gaaro like gare share gare kana mid noqo saaxiibada sida maalinlaha wararkeena halkan ugu la socdo. soo dhawaada saaxiibada. ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku wajahan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya iyadoo halkaasi qorshuhu uu yahay in markaasi Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaruhu halkaasi kulamo xasaasi ugu furmi doono misna hadal lagu dhaxdhaxaadinayo dawladda Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland oo xiisadiisu cirka isku sii shareereeday maalmihii ugu dambeeyay ee la qorsheynaya in kulamo halkaasi ugu bilowdo. haddaba waxaa isweydiin mudan habeenadan waxaa si weyn markaasi la isku dhaafsanayay baraha bulshada warqado midba kale ka daran ama markaasi maamul kastaba markaasi ku tilmaamayay midka kale inuu wanted yahay la soona qabanayo iyadoo heer ilaa maxkamadda Hague la isla gaaray welina aysan jawaab ay ka bixinin. waxaana sidoo kale jirta in markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay Ras Kamboni iyo waliba sidoo kale deegaano kale oo kamid ah gobolka Jubbaland oo halkaasina si weyn markaasi ugu abaabulan iyadoo wali aysan dhaafin Ras Kamboni ciidamadii halkaasi la geeyay walow dad qaarkiisu ay tilmaamayaan in markaasi qorshuhu uusan ahayn dagaal laakiin uu yahay kaliya halkii ay baneeyeen ciidamada nabad ilaalinta u joogtay ee Soomaaliya markaasi qorshahooduna ahaa inay markaasi qayb ay ka ahaadaan nabad ilaalinta ee Soomaaliya ay baneeyeen ciidamadan markaasi lagu bedelayay. haddaba wada hadalladan ee magaalada Nairobi wadanka Kenya uga furmi doono ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale Axmed Madoobe ayaana saacadihii ugu dambeeyay si weyn baraha bulshada u haysta iyadoo aan markaasi la sheegay misna ay sheegayaan wararkuba in waqtigan la joogay ra'iisul wasaaraha dalku aysan ahayn in talaabo u qaado markaasi wada hadalna lala aado Axmed Madoobe maadaama qorshaha ugu culus ee ay dawladdu qaaday ee uu ahaa in markaasi Axmed Madoobe doorashadiisa aysan aqoonsaneen waxgaradkana sidoo kale aysan aqoonsaneen aana markaasi u tirsaneen ama markaasi aana laga yeelaynin. laakiin Axmed Madoobe uu ku dhaga adkeeday wuxuu waliba amar kale uu ku sii bixiyay markaasi gudoomiyaha degmada misna duqa magaaladaasiba ee amar lagu siiyay in gebi ahaanba uu ka fajo warqadaha ee markaasi sawirada madaxweynaha ahaa ee ku dhaganaa xafiisyada maamulkaasi oo dhani iyo waliba sidoo kale dhammaan goobaha ama markaasi xafiisyada kala duwan bale taasi oo saacadihii ugu dambeeyay iyadana waa markaasi si weyn baraha bulshada u qabsay hadalhaynteeduna waqtigan la joogay ay taagan tahay. madaxweynaha iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha muddooyinkii ugu dambeeyay talaabooyinka ay qaadeen ayaa u muuqatay mid markaasi si weyn ay ugu soo horjeedaan xukunka Axmed Madoobe ee jirsaday tan iyo waliba in ka badan 18 sano ku dhawaad ee halkaasi iska fadhiyo welina dawladdiisu ay dhaafi laacsan tahay magaalada Kismaayo oo kaliya. gobolka Gedo sida Doolow iyo waliba sidoo kale magaalooyin kale ayay ku badan yihiin barakaciyaashu Axmed Madoobe kama warhayo dhammaan intaasi oo dhan laakiin waxay ku xeendaaban tahay dawladdiisi Kismaayo oo kaliya isagoo halkaasi horeyba ugu sheegay in Kismaayo waa markaasi Kismaayo ay imaadeen iyagoo markaasi meedad iyo waliba sidoo kale dhiigag oo markaasi dhaawacyo wata laakiin waqtigan la joogayna loo baahnaa in isbedel u dhaco laakiin go'aan lagu gaaray in uu markaasi sii joogi karo. Axmed Madoobe ayaa fuusadiisa riixanayo ku wada inuu sii joogi karo halkaasi ama ku adkeysanaya in qaab military ahaan xitaa loogu qaadi karin magaalada Kismaayo. wixii xog ee ka soo baxa safarka ra'iisul wasaaraha iyo waliba sidoo kale wada hadallada Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya bartaneedu kugula wadaagi doona saaxiibayaal si shir gareem muuqaal meel dheer nal gaarsiintiin qaybta hoose faalada commentigeeda nagula wadaagi kartaan bogan haddii ay markuu ugu horreysay uu ku soo gaaro ka mid noqon saaxiibada sida maalinlaha wararkeena halkan ugu la socda.